asxaabta dhammaantiin aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya kusoo dhawaada channelka Mataanka Official. maanta waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo ama ka hadlo horta niyow mooyar waxaan ka sheekeyn doonaa maanta insha Allah Abdullahi raali ka noqdo gabadhii walaasheen ahayd ee laga soo tuuray dabaqaas magaalada Muqdisho degmada Banaadir. horta inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. ilaahayada ha u naxariisto qabrigana ha u nuuriyo marti la jecel yahayna ilaahay ha ka dhigo. kulley dadka bini'aadanka faraheena ilaahay ma simin. horta aad iyo aad baan uga xumahay waxa gabadhaas loo geystay iyo falka xun ee lagula kacay. waana fal aan kulley ma dhihi karo Soomaalidu ku cusub yahay, laakiin waa fal aad iyo aad xun oo wanaagsanayn haddii dhanka diinteena noqoto iyo haddii inaga sideen kala noqoto dhaqankeena iyo wixii nabadda noqoto xataa ma wanaagsano. wallahi aad baan uga naxay maanta markaan arkay gabadhaas iyo se waxay u jireen raggii imika waxay noqdeen bahal caadi waraabayaal bay noqon waraabayaal. markaas niyo waxa wanaagsan hadda waxaan tala usoo jeedinay iyo tusaalaba hadda gabadhii walaashay maanta way dhimatay, ilaahay u naxariisto. wax kale oo aan qaban karna hadda ma lahan inaan u duceyno wey dhammaan asxaabta inta muslimiinta oo dhan. waxaan oo gabadhaas maqashay aragta sawirkeeda ama maqashayba geerideeda iyo se wax u dhaceen qisadeeda ay soo gaadhay isku dayana laba raacad u tukataan oo u duceysaan iyadana ilaahay insha Allah bimilaa kaliya u naxariisto. midda kale horta raggan ay wiilkan gabadhu wiil bay wada sheekaysan jireen wasaan sheekada ku maqlay. kadib wiilkii baa balmiyey wuxuu ku dhahay ii kaale adii gabadhii waa u timid waa laba qof oo dee awalba wanaag isku bartay oo wanaag kuwada socon jiray ahayd. wax dhibaato iyo wax xumaan san u malaynayo kamaysan filin sababtoo ah xumaan ka arki lahayd kumaysan tegi lahayn. kadib wiilkii uu tagtay wiilkii fal xun buu ku sameeyey falkaa la wada arkay maanta dhan Soomaalida ay arkeen oo Soomaalida dhan ay wada wadaan meel kasta sawirkeeda meel kasta dadka sawirkeeda u yaalo. baa dhacday gabadhii waxaas dhan lagu sameeyey bal dameer xumada raggan bini'aadanka imika raggeeni waxay noqdeen qaarkood wallaahi billaahi talaahi waraabaha dhaamaba waxay noqdeen xayawaanin kuwii ugu xumaa bahalo. waxaana wanaagsan oo fiican gabdhaheena oo kow wata inay is ilaaliyaan. raggii hadda kalsoonidii wallaahi billaahi talaahi anigu gabar Soomaaliyeed imika waxaan dhihi lahaaba iska hubi qofka marka hore almu waraabahan oo kale yahay. waraabayaasha way soo bateen ma garanaysaa waraabayaasha way soo bateen korka unbay ka yihiin bini'aadan hoosta waraabay ka yihiin macnaha quluubta iyo qalbiga iyo maskaxda ku jirta qofkaas maaragta damiirkiisu waa damiir waraabe. xayawaankaa dhaama dameerkaa lagu shaqaysanaya dhaama waaba lagu shaqaysanaya dameerkaas kan wuxuu kusoo kordhinayo ma laha. hadda iyaga waa la qabanaa gabadhi way dileen iyagana qasab waxa u dambeynaysa in la dilo waxay soo kordhiyeen ma lahan aan dhibaatay gacantooda isku geysteen iyo gabadh intaasoo sano wax soo baranaysa intaas sano xaafadooda ku tabcaynay bilaash ku dilaan. gabadha horta aad baan wallahi uga naxay ilaaha u naxariisto qabrigana ilaaha u waasiciyo. kuwan kale anugu kulley horta wallaahi raggaas waxaan ku tilmaamaba ma garanay rag in ay raadaxtaa waaba kala xishoonaya sababtoo ah kuwaas rag ma ahan. qof war gabadhu way kula dhalatay waad guursan doontaa ama u dhixi doontaa waa hooyada way ku dhashay. adduunka dhan haddayna gabar jirmada joogi lahaa adduunka haddayna gabar jirmada joogi lahayn bay raggan bilaadamiirka ah ee qalbigooda iyo maskaxdooda dabada ka gashay qalbi male. marka waxaan waadan leeyahay gabadhaas faataxda u marno aan u soo duceyno insha Allah bismillaahi kariim. raggan waraabayaasha dumarkeenan sharafta leh ee wanaagsan ee qiimaha leh ee qaayaha leh adduunku waa gabdhaha ugu horeeya dhanka dhaqanka iyo asluubta iyo ixtiraamka iyo kala dambeynta. laha eegin wax yaro in yaroo fara ku tiris oo yar oo intaasna insha Allah ilaaha aan noo soo haday. laakiin 100% hablaha Soomaalidu aad bay wanaagsan mana wanaagsaneen gabdhaha lagu ciyaaro. sanadka waxa arkaysaa hebel bahbalaayo cunay waa wiil dhan oo nin isku sheegaya Soomaaliya baa gabar ma cunaya
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ilaahay horta gabadhaas u naxariisto qabrigeena ilaaha waasiciyo laakiin ninkan maraanka ah weliba hal ilmahaasa la sheegay way badnaayeen nimankan maraamiinta ma laga waayo hal qof oo keliya oo yidhaahdo ama damiirkiis uu shaqeeyo uu yidhaahdo war gabadhan de waa gabadhe adigan ay kula sheekaysastahay de adigan kaaga baxinaya nagu kala kaxee haddii aad waxaan ku dhaqaaqayshina booliskaas ku geenina ma la waayo intaas sharaakay kusoo galeen sida kooxdii intaasoo qof waa gabadh bili-aadan iyo miskiin yar oo konton ahba hal nin keliyaba ku xoog weyn yahay baa 100 nin ku dhawaad laskugu imanaya iyo 10 nin iyo waxa inta u dhigma atiir la googoosanaya macnaha marka lagu leeyahay habluhu waa hilibkooda waa cadde waraabaha hadda hilib tuurto ku cunaya masaga dhaafay xataa soo indhaas ka cunaya waraabuhu hadda hilib tuurto ragga qaarkoodna waa noocaas qofkay banaanka helaan ama ay libin ka arkaan maaragtay say doonaanba ka yeelayaan kulli waa sheeko naxdin leh waa qiso naxdin leh oo laga xumaado inay raggeenii Soomaaliyeed qaarkood saa noqdeen oo raggeenii Soomaaliyeed ay dhaqan xumada bilaabeen oo raggeenii Soomaaliyeed dumarkeenii ka amaan heli lahaayeen war gabadhu way ku aamintay way ku kalsoonaatay kalsoonida 100% bay ku siisay rag adduunka jooga dhanba kaliya ka dhex dooratay wax u muuqdo kaliya waa adiga waxay kugu timid ma is weydiisay waxay kugu imanaysa guriga ka soo baxsay ma ku weydiisay habeen gabar guriga ka soo baxday banaanka ugu timid de waxay kugu timid kalsooni iyo ixtiraam iyo wanaag aday ka aragtay maaha inaad gabadhi ka faa'iidaysatid dhaqan xumada ku kacday raggan kale aan la hadlayaa imika kaas waa xayawaankana ma xisaabsano raggan kale oo hableena ilaashano gabdhuhu waa gabdhaheeni way kula dhalatay waa dhali doontaa waa dad hooyada ku dhashay adduunku keentay wey kuwaas yani ma xisaabsano kule Soomaalina maahan muslim naxta maahan kuwaas qarqabooyinkaas qof bil-aadmi dhiiggiis inaad daadis ma wanaagsan qof waduu muslim yahayba muslim ba hadduu yahay dhiiggiis inaad daadis ma wanaagsan walba marka qaar ku xitaa kristaanka iyo kuwan gaalada waa in dhiigo hordaadiyaan wanaagsaneynba oo been ku daadaysin macnaha dadka bil-aadanka ah waxa wanaagsan ilaah adduunka wuxuu balaariyay labada wixii isfahmi waayna wadada ku kala maraan macnaha in maaha inaga isku soo noqono inaga socono inaga si waraabiga saas uga qaniino hablaheeni baa imika loo taag layahay tii soo kacda la arkay inay shidan tahay waa la googoynaya macnaha laba loo kala jaraya sababta ka dambeysa waxa weeye wadankeeni iyo ilaahay ragga qaar ha soo hadeeyo ragga qaar ilaahay ha soo hadeeyo asxaabta dhamaantii waxa leeyahay anagoo ma ogolin namana matalo nin noocaas oo kale ah haddaan anagu ragga Soomaaliyeed nahay waxaas nin noocaas nama matalaba anaga nin gabadh iska dhaaf uu kaas waxaas xunba ku sameeyeen kar qabaasi ilaahay kara ku riday war nin gabar saa u eego ama hadal xun ku celiyo anaga nama matalaba kaas in kar qabo weey gabadhaas waxaan leenahay ilaahu naxariisto familkii iyo qaraabadii ka baxdan ilaahay samri iimaha ka siiyo innaga dhammaanteena ilaahay samri iimaha naga siiyo kuwii ku tusaale qaatana ragga Soomaaliyeed qaarkood ilaaha ka dhigo ilaahay kuwii ku tusaale qaatay ragga qaarkood ka dhigo ilaahay naga dhigo dadkeen sanadkan dambe khadka ka sii baxaya raggeena qaarkood wax ku kalifan garin waay waxa ay wadaan wax ku kalifan garin waay xumaantan wax ku kalifan garin waay in dhiig daadiyaan in dhiig la daadiyo in qof dhinto in qof la dilo um bay rabaa kaliya macnaha baa wacadba ilaahay wada qafuur raxiim gabadhaan u naxariiso reerko ay ka dhalatay iyo faamiladeedina qalbiyadooda ilaahay u deji ilaahay ayada number 3 jecel ka dhig annagana sidoo kale ilaahay waxa naga dhigtaa ragga dumarkooda anfaca oo wax dhibaato iyo ilaahay naga haya insha Allah bina karin dhamaanteen asxaabta idinkana waxaan idin leeyahay hadda fiidiyogaas idin soo gaaro faafiya dadka qaar si ay u arkaan hadalada aan ma garanaysaa anoo ninkaas kulay nama matalo doona xataa haddii kule uma maleeyo ninkaas inuu sii noolaanahay oo wixii saacadiisu hadda way soo afjarantay ka hor nimankaas la qabto saacadda way soo afjarmaysaa si kasta xitaa ha ahaato nooc walba ha ahaato si adduunka kusoo joogaan waa adag tahay marka insha Allah waxaan asxaabta ilaahay dhamaantii aad bay salaamayaa marugadaas sheekadaas qisada xuntaana aad iyo aad baan walaha wax mahay ani haata waliba ani aad baa wax mahay ma jecli gabar Soomaaliyeed in lagu xadgudbo ma jecli in gabar Soomaaliyeed la dhibo ma jecli in gabar Soomaaliyeed lagu deelo ama lagu ciyaaro tan ciyaar way dhaaftay nafta la laafiyay waliba si silac
goormaan markaa ka baxaynaa macnaha goormaan ka baxaynaa in gabdhaheyna aan diritaanka goormaa laga diinayaa goormaa inagu markaa horumar gaaraynaa oon gabdhaheyna dhaafayna goormaan gabdhaha ka dhigana boqoro soton ilaa gabdhaha soomaalida waa boqori maya boqori may waraagi may ixtiraankii hablaha inoo haya inaga u hayna horaa waxa loo yiri barar baa barariyo qurmis hal qof oo xumaanaya intii kalena waa safar loo soo galayaa macnaha ragga soomaaliyeed baa la dhahaya raggii soomaaliyeed waxaa nagu jira inkaar qabahaan nagu jira irkii dhulka ay inta naceen meel laga soo indhasa baa gara waya anugu markaas saxaabta dhammaantii aad baa idin salaamaya waan ka xumay 100% gabadhaas soomaaliyeed wax soo gaaray insha allah waan is arki doonaa mar labaad iyo mar saddexaad ba asxaabtii aad baa idin salaamaya